waxa weeye dee waynu ogeen saddexda maamul baa soo hadhay saddexdii maamul ee waqtigaa jiray hadda way joogaan waxaad madaxweynahana waxa xilka u kordhiya waa baarlamaan waxa xilka u kordhiya madaxweynaha waa baarlamaan haddii aad leedahay heshiiskii maamul goboleedada wuxuu kordhiyey xasan sheekh maxamuud oo 6 bilood ugu daray heshiiskii 17 September wuxuu qeexayay haddii doorashadu waqtigeeda ku qabsoomi weydo in dawladda hadda joogta ay sii haynayso xilka sixiyay labada golobo way ansixiyeen oo taas shaki kama taagna okay anoo soo koobiyo hadda raali mahadsanid maxaan ku sheegay walaalo qodobka inuu sii joogay hadii doorashada heshiiskeeda waxaas kii waxaad u cuskanaysaa qodobka 136 ee ah inuuna firaaq dastuuri ah uusan imaanin iyadoo taasi ay jirto heshiiskay galeen maamul goboleedadu iyo farmaajana wuxuu qeexay heshiiskii galeen 17 September waxa ku jiray qodobo ah in maxaa la ii sheeg dawladdu xilka sii haynayso ilaa iyo intay ka imaanayso xukuumad kale tan aanu joogno wadankan aanu joogno 2018 saasoo kala dhacday waxa weeye 9 bilood ayay sii fadhiday xukuumadda wadankani wana wadan horumaray ilaa iyo xukuumaddii kale imaanaysay okay ano taa ka gudbeeya maxamed cabdullaahi farmaajo wallahi oo billahi oo tallahi waxaan qirayaa ma nin dambo dhasha iyo nin dambo soo baxaaba mise waxa hadda halkan jooga shishe sokeeyaba way ogyihiin أنا حاسس محمود حبيلا دام الشيخ شريف حاسس الشيخ محمود أنا هو حبيلا دام الشيخ شريف مركل لا يقول لبدو هن يدولة نمو يكلسوني يقعان أنت باني وحيلا دام الشيخ شريف حاسس الشيخ محمود مدحوني يقول لي تي أنتي أنا وأنجراس أنا دود عبد الله يوسف أنجراس أنتي أنجراس دي أنا أركبوها أنتي أنجراس دي نينكي يقول لي تا أنا أركبوها أوكي هذا مدحونا عبد الله محمد عبد الله فرماتشو ومدحوناها كلية عايز سوكو براو شعب بدنا نسويه وسوكو waxaan ku soo koobiyaa halka qodob waxaan ku soo koobiyaa hal qodob ku soo koobiyaa maxamed cabdullaahi farmaajo walaal nin oo dhaama oo waqtigan aynu magacaabi karno oo aynu u dhiibi karno oo aynu talada dalka ku halayn karno ma hubo aniga maanta maxamed cabdullaahi farmaajo ninka kalsoonida geliyay inaan maanta oo wallahi oo billahi oo tallahi inaan maanta intaan baxo aan ciidamada gorgor qorto in ninka maanta kalsoonida ay geliyay ee aan ku haminayo weey shalay tolona Soomaaliya ma maqli karin waxyar nasiyo waxyar ولا لا هذا وما انتهى محيط هربنا أنا يوم أمريكان أيوه كارلو زلوي أيوب بس إنه مكان إير ولا لا هذا وكحجز أيوب كحجز ولا لا دوراليا أوكي أرتا أنا جنين معارضة هاي تذكر محافظ كأه مرول با فرماجة تاجرة haddii aan kabtan ayuub hadalkiisa ku laabto haday wuxuu yiri xasan sheekh maxamuud allah karaameeye waa madaxweyneyga hore ixtiraama u haya Soomaaliyana wax badan oo u qabtay lama xaqiri karo asagu waa xaafid weeye kabtan ayuub ninka uu leeyahay ixtiraaman u haya waa xasan sheekh maxamuud okay marka uu asagu yahay maxaafid ninka uu taageerayo waa maxamed cabdullaahi farmaajo ninka asaga uu taageerayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo ayaan ixtiraam u hayn xasan sheekh maxamuud taas waa mid oo wuxuu u diiday inuu ka dhoofo Muqdisho sidoo kale wuxuu diiday maxaa Cabdullaahi Farmaajo in madaxweynihii asaga ka horeeyay ee xasan sheekh maxamuud diyaaradii asaga iyo sheekh shariif sidii ee ka degto beledweyne taas waa mid oo la wada ogyahay Soomaalina way wada ogtahay midda kale waxa waaye kabtan ayuub haday saddex wajiin ugu hadlay mar wuxuu nugula hadlay waji ah inuu yahay nin muxaafid ah oo raba in dawladdu ay taagnaato dalku uu dhisnaado oo aan kala sadeen marna wuxuu nugula hadlay waji ah in uu yiri xasan sheekh maxamuud wuxuu hubeeyay galmudug dhinaca galmudug waliba wuxuu lacag siiyay ama hub siiyay macnaha dadka reer galmudug waxayna ku soo duuleen dhinaca kala qaybta kale ee ka degan Puntland markaasna wuxuu nugula hadlay waji nin maaragta beeleed ah horta dadka farmaajo taageera qofka mas'uulka ah waxa lagu ogaadaa wanaagiisa dadka asaga taabacsan horta dadka farmaajo taageera waxay ku taageeraan waa qabyaalad midda labaad waxa waaye dad wax barta maaha English xitaa ma yaqaanaan taariikhaha wax dhacay ma yaqaanaan af Carabi ma yaqaanaan
haddaan ku laabta kabtan ayuub hadaaye mar uu rabay inuu xasan sheekh maxamuud been ka sheego wuxuu dhiibay NLFD miya wax saasa ninkan cabdiqaniyaa ka sacay oo wuxuu yidhi waa onanf ma garatay marka waxaa wanaagsan in maaragta xaqa laga hadlo farmaajo waqtigiisii waa dhammaaday madaxweyne walbana waqti uu leeyahay xasan sheekh maxamuud waa sax 6 bilood in uu ku darsaday laakiin 6 bilood oo xasan sheekh maxamuud ku darsaday ayaa waxay ahayd howshii programkii processkii doorashada wax walba bartanka looga jiray maxaa cabdullaahi farmaajo mudahaleedkiisu wuxuu ku ekay 8 febraayo maxaa cabdullaahi farmaajo markii waqtigiisu dhamaahay ma processa socday ma xildhibaanaa la soo doortay wax la soo doortay male fiiri maxaa cabdullaahi farmaajo xitaa wuxuu kari waayey inuu la heshiiyo maamulada dalka jiray maxaa cabdullaahi farmaajo waa ninka keliya ee macnaha diiday in xitaa wareysi laga qaado maxaa cabdullaahi farmaajo lama wareysan karo maxaa cabdullaahi farmaajo wuxuu ku duulay oo weeraray siyaasiyiin Soomaaliyeed oo mucaarada marka aan leenahay maxaa cabdullaahi farmaajo waa dictator lamida maxamed siyaad barre taasaa ka mid ah waa wax cad cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisu weeraray shan inuu ka dilay sheekh shariif sheekh axmed oo ah asaga farmaajo ah maskiinka farmaajo ah ee liita ninkii magacaabay ee ra'iisul wasaaraha ka dhigay oo u diiday inuu dhoofo hadda waa sheekh shariif maxamed sheekh shariif sheekh axmed waa fiiri sheekh shariif sheekh axmed yaa ka xaneeya badan yaa ka geesan yaa ka qamarsan cidna waa uu kari karay maalintaas inuu 37 ku garaaco elaboorka laakiin wuxuu u naxay shacabka Soomaaliyeed sheekh shariif sheekh axmed markii loo diiday waa iska aamus xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif waa socdo beledweyne markii ubiga ku fatahay dadka masaakiinta ah ee reer beledweyne iyo hiiraan oo dhan lacag u waday waa u diiday waa waxyaabaha micnaha okay ka soo tag labadaas nin waa niman maaragtay siyaasad isku hayaan okay oo wuxuu uga baqayaa kursiga maadaama ay dalkaana soo maamuleen muqdishona ay u dhasheen xisbiye ay leeyihiin xagga iska qalbi dhagax micnaha qoraxdaas adiga sacbaha ma ku qari kartaa waa maya qalbi dhagax yaa dhiibay okay qalbi dhagax waxaa dhiibay maxaa cabdullaahi farmaajo fiiri maxaa cabdullaahi farmaajo dhiibay xitaa ilaa hadda kama uusan garaabin marka ma rabo inaan aniga dooda ku dheeraado maxaa cabdullaahi farmaajo dalkuu dambi ka galay wuxuu dambi ka galay dadka Soomaaliyeed dambi ka galay maxaa cabdullaahi farmaajo liisti wuxuu dhibaato ku hayaa dad gaar ah Soomaalidu dhan dhibaato waa ku hayaa dad gaarana waa ku hayaa Axmed Madoobe ku soo haray Axmed Madoobe markuu arkay ninkan munaafiq ah beenlowga ah ee aan ballan kale ahayn xaniyiisu fuulay waana iska dhacay wuxuuna u diiday farmaajo iyo dad nabad iyo nolol in ay soo farageliyaan doorashada Jubbaland okay haddii uu u ogolaa lahay in farmaajo iyo dawladda uu hogaamiyo ay soo farageliyaan doorashada Jubbaland waxaa ku dhici lahaa wixii ku dhacay Mukhtaar Roobo Mansuur wixii ka dhacay Galmudug qorqor ninka leeyahay waxa bad sigaara oo farmaajo u cabo waa ma fahanti maxaa ku soo haray cali guudlaawe waa miskiin waa la keenay marka maxaa cabdullaahi farmaajo hawiyana dan uma hayo daaroodna dan uma hayo tigil imilna dan uma hayo isaaqna dan uma hayo Soomaali weynna dan uma hayo marka maxaa cabdullaahi farmaajo iyaa muhiimsan ummadda Soomaaliyeed fiiri sheekh shariif sheekh axmed ka hawiyaha ah marka ay rabaan inay dhaliilaan waxay dhahaan sheekh shariif naf malahan oo majeerteen baa ku adeegtay garowan iyo garowatu waa ninkii sameeyay okay sheekh shariif madaxweyne Soomaaliyeed oo ahay hawiye kaliya madaxweyne uma ahayn marka madaxweyne tahay waxa laga rabaa dadka Soomaaliyeed oo dhan fiiri inaan qancido marka wuxuu sababtaas u sameeyay waxay ahayd waa in uu qanciyo maadaama Puntland ay tahay dad Soomaaliyeed maadaama maamul Soomaaliyeed uu Puntland yahay marka maxaa cabdullaahi farmaajo waxaan ku tilmaamay anigu ma aqaan anigu waxa kaliya farmaajo aan ku tilmaami karaa waxay tahay gabar cunug lagu furay oo kale wiil lagu furay marka waana ka baxay soo ayuub waa mahadsantahay wareeji meega wareeji walaal mariyay dad badan baa rabaa inay hadlaan marka meega wareeji haye walaal hadda taas waxa ku xigay qof kasta oo soo martay tookadiisa hasugo haddana ayuub horta aad baa u mahadsantahay fikradaas aan la wadaagtay haddana meega waxa u dhiibayaa xoday walaal mii maqashaa هاكم والله السلام عليكم خيارات شرفت له
كل يوم السلام يا من هذا البدي مرة من بعد نسوا كابشن وحرك ما تجين ها كان بدي مرة وكرفته ضد من نسوا هي قفل بنا لو وضع هذا غير wiilka maxaa ku dhacay aawe maqalmayse waa tegey ikaadii cabdiqani iyo mo iyo maariya ikaadii ayuu Maria. xode ikaadii maya hal daqiiqa hormar ikaadii wax yar baa ninkaas Ayuu in adeero dictatornimada iska daa oo ninka hadal ayuu ikaadi qofkii Allah hadal ka dalqaadanayso seedadu macna cadaab yeelanaysa xiriiriyaha ku ixtiraan meege xiriiriyaha meege ku ixtiraan dadka hadalka sii maanta dhan baa lagu dhegeysanay axad baacadow ikaadi adeerbaxayo nin baa ila hadlay hadalku ila hadlay waxaan dhahayaa ikaadi ikaadi wax yar taageerayaasha farmaajana doodu waa laba geesood waxay ka hadlaysaa waxa weeye ayuu kaa ramey doodu waa laba geesood waa difaace iyo weer in qofku aniga personal ii ataago inuu bulshada dhex dhigo ra'yiga waa kala labo markuu personal ii ataago inaan fakarkii ama su-aashii weydiiyey walaalkay uga jawaabahay waajib oo isaaran walaalo laakiin ma siin karnaa jawaabta qof kale oo dhinaca maya waa gudbinaynaa dad aniga boqolaal baa ila aragtiya qof kalsooni xun maahi shacab badan baa ila aragtiya u gudbin doonaa laakiin waxaan rabaa kelmad ah walaalkay ayub kaaro uu soo gudbiyey inaa uga jawaabo maadaama uusan joogin marka hadda uu ka maqan yahay meeshii jawaabtu macno yeelan mayso dadka ninka xodayaha loo dhiibo bal aad buu u kakan yahay xoogaa waxaan rabaa in ayuu kaaro la sugtido markuu mataqaana yimaadan hadalka ka dhigtid waa mahadsan tahay intaas kadib hadalka ma rabo inaan badiyo aan ku rafto nuxurkan u gudbahayaa dhammaan khayrta sharafta waa salaamaya intaas kadib labada dhinac laba kalma aan rabo inaan idhaahdo dhinaca kabtan ayuub waxaan leeyahay yatiimkan muxaafidka horade anu hadda xaan baan kala hadlayaa kolley meesha ugu muhiimsan oo dowladda laga fiiriyana waa amniga maanta gaari baa wareegahaya mikrofon ku xiran yahay oo coronavirus dadka aan bahalka maaskiga wadan waa la qabanahayaa gobolka banaadir waa qabanahayaa hal soo yiri si uu wareegayay marka mukarrama kaara markuu marahayaa qarax loo dhigay hada waa gaarigii dhammaa marka namayo halkaas amni ka maraynaa meesha ugu dambeysay xaggaas aan laga hadlin oo la oran horta amniga wax laga qabtay in xaggaa lagu fashilay aanu aad iyo aad igu muuqata meeshana waa joognaa tan labaad dowladdan dhinaca wanaagga marka laga fiiriyo hal waxaan ku ammaani karaa mushaar awar 9 bilood meeshii laga qadi jiray macal xildhibaanada 9 bilood aysan mushaar heli jirin hadda 28 bisha ilaa 23 dadku waa helaan taas waa iyadana waa ammaan u soo jeedinayo dhanka labaad oo mucaaradka ayuu kaarlay ninka la yiraahdo yacquub siyaad si fiican bay u hadleen oo waa hadleen laakiin hal mid ku biiyaan hadal qabiil baa lagu soo duulay waxa weeye qabiilada la ceyrsanaya iyo hadalkooda ku jirtay war hadda annaga mucaarada farmaajana ku qabiilay muxuu yahay niman oo qabiilka la eriyanayo hadalkiina waa fiican yahay laakiin waxaan oran lahaa bahasha ka daaya qabiilka iyo bahashana loo ordaysaan oo aad karkarinaysaan meeshaana qabiil ma yaalle nin walba ninkuu fahmo dantiisa ka arku raacaya wabillahi tawfiiq Maria waan jeclaan ka tagaan rabaay cabdiqani dad fadhiyay maanta doona hadlin baa jira ilaa hadda rabaa inay hadlaan ra'yiga dadka isku ixtiraam haddana mayga waxa u dhiibayaa ayuu soo laabtamay ayuu soo laabanin waxa u dhiibayaa sahal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته وسلامتهين horta يعقوبنا waa rabay in aniga mowqifka iyo hadalka point aan ka hadlayo inuu asaga wax ku yeesho uu maqlo laakiin uu maqan yahay gadaal buu ka ogaan doonaa insha Allah idinkana dhageyna waa gaarsiinaya horta waa midoo farmaajo dalka waxa uu ka qabtay horta saqiir iyo kabiir inay wax ka dhagsan yihiin baan u maleynaya
farmaajo maanta hal cilad baa lagu eedayn karaa oo dalka doorasho ma gaarsiin damac siyaasi ha noqoto oo siyaasiyiinta ka horreysayba way yeesheen oo way sameeyeen hadduu maanta 8 Febraayo doorashada gaarsiin lahaa wuxuu ahaan lahaa madaxweynaha ugu qiimaha badan oo annagoo dhan isku raacsannahay inuu ahaa madaxweynihii ciidamadii amniga dhisay arrimihii dibadda wax ka qabtay dalkii xasilooni geliyey 4 sano uu hayay wax dhib aan ka dhicin baa lagu ammaani lahaa laakiin ku darsashooyinkii hore oo soo jireenka ahaa oo waxaanu 4.5 lagu yimid damacaasi meesha uu ku jiray maadaama taa uusan gaarsiin dalkii doorasho waa lagu eedayn karaa macnaha wixii uu soo sameeyey wanaag ahaa dhan waxaa isku fuuqsaday dalkii oo aan doorasho aan ka dhicin taas waa cilada koowaad oo xisbiga muxaafidka anigu aan u hayo oo qof kastana uu ku dhaliilayo tan kale oo nimanka mucaaradka ah oo farmaajo mucaaradaya waa kabtan ayuub kaarlo iyo yacquub madaxweyne deni buu dhabarka ku wataya madoobe anigu reer puntland baan ahay puntland kasoo jeedaa tan puntland dhibaatada ka jirta uu deni uu ku sheegay uu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo waxa uu yahay nin aan xorriyadda aan u ogolayn dadka horta dhammaantii waan salaamayaa gabadha hadalkeeda ugu dambeeyaan ka dareemaya su-aashan soo wado maaragtay in laga jawaabo iga raali ahaada waxay ahayd yani waxaa jiray weel wax lagu cuno marka weelkaas dhirta ugu badan ee laga samayn jiray baan rabaa in la sheego waa mahadsantiin haye gabadhuux maxamuud baa markaa inta dambe soo qaban doonay gabadhuuxu su-aalaha iyo tiyaatarkii qaranka iyo maxaa abwaanadu hadda wuxuu ka qaban waayeen haddii ka maqnayd iyo kuwa hadda maqlaysay iyo wixii kale aqalka gabagabadiina waa joognaa bismillah horta walaal labadin wada salaamay waa ka xumahay waa baxbaxaya hadba oo ma joogin inta badnaydbaba wax la sheegay iyo abwaane xogaa yar codkaaga abwaane may maqashaan hadda ka warrama waa okay aad mahadsantihiin waa idinka yara maqnaaday wax la isweydiiyey iyo wax laga jawaabay iyo wax laga tegey iyo waxa la sheegay baa lama kala socon haddaan se intata su-aalaha ka kan abaaro hadda qofkii ina weydiiyey maxaa dadkii hore barkan jireen hadba xilli baa horta lasoo maray oo dadku noloshu miyigu ilaa muddo ayay soo taxnayd ilaa iyo samano ilaa iyo qarniyo dadka soomaaliduna ma aha dad hadda dhashay oo meelaha kakan dhowdhow ka yimi iyo shalayto iyo darhato sida inoo sheego badi ma aha oo markaynu taariikhdeeni iyo waxaynu joognay baa de waxa laynoogu sheekeeyey inaynu 5 oday oo meelaha kan kala yimi aynu nahay laakiin dad intaa ka fac weyn baynu nahay bal ummadihii dunida ay kasoo farcantay looba badinayo inay geeska Afrika tahay iyo dadka Soomaalida wuxuu yiri daraasad waxay lahayd diiwaankiisii tiray waxay cilmi dah fureen duleedada kaga tagay taariikhdeedan dadneen iyo dabargooye ay da'deeda weyn misanada raad program kala bilaawin ciyaarsan way qof orda amusa jata surka ilaaliya ciyaarsan way qof walba qof kor wada dejinaya waa farta marna wiil daarta gabadha daarta anoo kale waxa leeyahay waxa dejinaya alla musta'an Idris qofanta marna qof walba qofka dejiyo hoos istaagaya labada ugu dambeeysa dadka dhan follow saarayaan follow ay badanaysi ma fahanta marna marka waxa bilaaway hanad wiil ama gabar stage ka saaran xarta hoos geynaysa ku soo hanad qofka saxmar oo hadleen hoos geynaa hanad wiil ama gabar askaraay kan meesha mar inuu joogo hoos geynaysa ku soco dadkiina magacaasi fiiriya hanad wiil ama gabar qof hoos geynaysa shaak maniya brother ha dadkiina ka sifirsada qofka argina hoos geysin يا هوس قلت عليه حيس هوس جاي على الناس الدقن حيس كيف رسالة واقبر حيس رجعت وجهه واقبر 1 2 3 4 5 ريفرش على البيج كيلو 5 معناها هذا حيس أكثر يو اسكو فيلم بقول كوار اوكي قول هوس جاي هنا تحط هوس اللي جاي وحق صعنا يا الناتش قول الناتش قرنتها هي داخل نلقى الناتش داخل الناتش نو هم نو
اوكي فير ابا ويل ام gabar stage saan isleedahay qofkan waxa rabo hoos inaad geeyo ku soco الله gabadh iyo wiil midka doona waa doorana صح أكرم akram iyo raadiya degan najla annaas dadkayga dhuuman raadiya sana ku soo أنا geeyo جينا واحد كسوة جي okay dhiman horaas waxna jalaad أكرم يا ري jalaad malika يس يس wiil ama gabar waxaas leedahay midqana ninka mar ama gabadha mar meesha joogto hoos geey ku soco hadduu ruuxa ku raago ii kamala tuuro bal su gacanta waa xiraasay dadka soo karaya gacanta way xiran tahay no bal gacanta waa xiran yaa hoos geysay اوكي okay em hoos geyso ku soco waalin free marasa waalin free ninka baxo oo soo laabtan hoos geeya waalin free yaa hoos geynaysaa waxaa geynayaa ragga ma geyn karaa bram raggi gabdhaha labadaba ragga iska deynaya gabdhaha mid u diraya gabadhee dhahday wild free waxaan dhahay lulu magaceed bulu ninka maxaa ka qaldan waalin free mud ka soo baxdee ku dhahay lula lulu 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 okay hoos geeya najla waa ay maqashaa manana kaahuna maqlaa adi iyo degan annaas dadka isi fifiriya sa iga dhuuman hoos geynaysaa gacantan way xiran tahay okay gabadhan kasii wadaa inaya axmed wiil ama gabar aas leedahay oo hoosa geenaya gey iyaanada naftirkeeda tuura yaa geysa liire raadiya gabdho hoos gee liire hoos soconaa idris wiil ama gabar aas leedahay hoosa geenaya ku soco wiilkaasaan geeya saciid cabdisalaam qabta hoos geeya saciid cabdisalaam hoos geeya okay isku filan wiil ama gabar aas leedahay hoosa geenaya qof walbo dooqiinsi diyaarsada saadik ku ay u qoran tahay maxaa u qoran saadik hoos geeya okay meesha waa la isku dhaarsin wax ciyaartan usoo bida isku dhaarsan laba program isku dhaarsin dadkan okay naciima maxaa lagu daraa wiilkan khayraad saadik khayraad okay naciima ku soco naciima ku soco yaa tuuraysaa وأنا واحد إلى صالح qabta hoos geeya صالح maxaa lagu daraa qof walba xashiisa magaca waxa lagu daraa سهل كسيم okay صالح كسيم okay hoos geeya لول لول أبوكر يا hoos geynaysaa سهل قاسم ما jeed laakiin gabdho qofkii la hayaa tuuro hada aragto سهل قاسم سهل قاسم يا waa tuurteen okay لول يا tuuraysaa لول يا tuuraysaa محمود maxaa lagu daraa inta agtaada miya maxamuud adeeg kula kacday taal noqon والله تندرس كده شيء ولا أتوري كويك يا دلي سا راح أدقيقة حالك ميتي نسيت هذا أيوة أتوري دلي سا أنت بحسن تايته بحسن نجلة يدقن بحسن تورا respectfully فرعسي ما قبل توريسين سويش من الهوس وكي أحسن ولا الوتر لكن قف كستها قدر قف وحلو الراعي قف قدنا لا يعين قفل مقع وراسي عريش يا تورسا هنط جرات هوس جي السيد يا تورسا نجيب أنا يا تور اسكو فيلن
والله اسكو فلوسه لوقي وكنت respectful يا والله ما نجيبه شفت أنا بس يتور ولا لا هذا إن هذا رجعنا ku إير soo عم socdaa جبران qof baa ku tuuri raba iska sug hanad hanad hala tuurhe حنت تورد إلى هذا تورد حنت korku saaran ودين إنبع تاسري حنت توصل لوقي يا أوكي عريسنا ويترس سيد مرسا سيد يا تورسا aniga ما قبرات سيد ورد يا سيد أوكي واتورت سارة محمد walaal سارة haa محمد walaal يا تورسا inkastoo qofnaan ka aqoonin meeshan muhan farax موها فرح تورا مو راح فاهم waa موها فرح tuuray تورا أوكي سوسن مختار سوسن مختار ها لا يا تورسا محمد محمد حنود لا مقع على كل شيء محمد السماء محمد مرسمة ساقبت الدقن إنجلة محمد مرسمة أوكي هرأس عنا ولدي أو waa قناة tuuray إسحاق ها والله يا تورسا بلو جير والله بلو جير بلو جير ساقبته بلو جير ساقبته أوكي MSS سمايل مس سمايل atore deg intaha kugu badan be أنا نقول شيء تعالى أطور هذا لك deg أوكي نفيسة حسين ها يا تورسا inkastoo qof aan ka aqaanin laakiin wiilka Oscar ugu qoran tahay عسكر تورا أوكي رأس عنا عسقنا عبد الشكور علي عبد الشكور علي يا تورسا يا أخي ماشي محاك تجينا نوع عاشق هو ماذا فاطمة اللي يا تورا هذه محاك تورة هذه لا فاطمة تعال ما فاطمة ستورة وامد هاد ليس أمرنا انتهى waa الصورة tuuray أوكي عوشة غني عوشة هذا أسطور صح هذا أوكي عمران دائما يا تورسا cabdi malow عبد ميلو نيكاس تورا عبد ميلو أوكي هراك على مو علي 7 مو علي 7 أوكي هذا صورته دي جي حكيم ها مقلع فوق برو يا تورسا نفيسة فريش سوق قادني نفيش تورا أوكي سكي أفريكا ma joogo balaad tuursada أوكي أصلا مع التورا يا سكي أفريكا عاوي سكي هوستك أدينا نفيسة وجوبتاي علمة حسن يس يا تورسا حابسة دافي ماشي كسؤالي ولا مقعة حابسة دتش حابسة هوست كي قبله مقعد شيء قصة مقعد علمة سيمبا جونيور يا تورسا waxaa tuurayaa نفيسة ولا وين شوكتا من نجيب يا جوجو نفيسة وين شوكتا دانا لا تورا أوكي نفيس ولا تورا قبل تورد waa tuuray أوكي نفيس واتورت أوكي ويل هو دم بياسو قبلناي ور جي حكيم واتورت قف وحاي سيمبا ما يسوق أصلي كبودي ور أصلي بيحنا صلابان مرضم أصلي يا تورسا xagtay daadaxyara mid ay ku qorayd عبد الداده يرى نيكاس يرادي عبد الداده يرى هوس الجنايا زيمبا مريسي زيمبا جونيور اوكي اذن هوس الجنايا براذر اس هاري براذر اوكي نيو نيكا مقعدك هوس يجاسنا
ديل داهر هذه ديل يعني داهر مقلع برياتورة صار خطورة يا زين زين سيد عمر سيد زين محمود عمر راه كبروة إنا لله زين عمر لا يقبح والله سيم قلنا عمر تورو تورة يقبح يا ابو سيم عمر تورة والله مش هو دارسين شافعي حاجي محمد هابرا في تورة سوف عفيري عمارك قبل dadkiina kala sii xusto كو كر لسو داف محلان كرا qof هابرا kasta waad tuuri kartaa walaal kor iyo hoos مال رادين درس كي تور حفصة ee waay halo oraa loki maxaa ku dhacay markaan invaada lasoo diray anigoo dadkaan wado waxaa ka dhacay meel la iskacaana macuud gang waa tagay hada soo darada kay wariye subxaan allah okay halkee maraysay waxay maraysay shaafici qof oo tuur Soomaali shushni qalbi هنا ha hon yaa tuuraysaa إدريس wiilka ugu qoranta kor Idris qabta Idris asnu okay shaafici qof ma tuure shaafici ya qof ma tuure inanta xabsa la dhahayo tuure way tuurtaa marna waxay maraysaa Nikki Dragon awla yaa tuuraysaa sayid maxaa lagu daraa يا sayid maxaa lagu daraa سيد كيا ترى هذا سيد علي sayid cali tuura horiyaa seeda istajintana ku waan dejin tuura qofkii la dejiyay isaga istajiyo kole waa la arkayaa adu istaji qofka la dejiyo okay ma haddana soo laabanayaan dejiye ininka okay waxay maraysaa cabdiraxmaan cali waa gabadh baa tuuraa gabar ama wiil waxaad doonaysid gabadh iyo wiil baa tuuri Ha. karaa okay 1 minute dadkiina kala sii kaas cabdishakuur ugu qorantay aroos inuu joogaad wada tuur cabdishakuur tuura degdeg cabdishakuur tuuray waa kabtan ayuube dulqaad ma lahane hadda may maqashaan walaal noo soo kabado raali ahaa Orang ku tuuray ma qolka xirto iga kala أي باي تقول ولا واحد ترى قان هذا هو قال لي بس صار قان inaan Maria inaan balmaadsantihiin kabtan ayuubo waxay ahayd markii maxaakiimta dawladda Soomaaliya lagu soo weeraray Ethiopia ay soo weeraraysay dalkeena Ethiopia ay soo galaysa eraygii ay cuskatay wuxuu ahaa eraygii General Yusuf Indhacda uu dhahay Addis Ababa ka qadaynaynaa falkii noocaas ahaabay Ethiopia ku xalaalaysatay inay Soomaaliya soo gasho Prime Minister Indhacda mise kaadib ma yuusayn wardeeyikaada horta aan hadle Ethiopia marka uu TV-ga qaranka Ethiopia uu ka dhahay waxaan anagu dalkeena inaan isku darsanaan ku heshiinay waxay ahayd wasaaraddeena arrimaha dibadda ee Soomaaliya inay jawaab cad ka bixiso waa dhaliil qaado anagu ma waano aragba madaxweynaha Allah yo asuusa ku jiraan adaa arkay indhaaga arkay adiga iyo ninimada anagu waan arag aad iyo aad u mahadsantihiin Soomaaliya nabada noo rajeynaya insha Allah taala idin lahaateena inta iga fikir duwan iyo inta ila fikirka ahba aad baan idin wada jeclaa walaalahayo khayr baan idin rajeynaya dalkeenana Ilaahay noo xasiliyo insha Allah taala dawlad caadil ah oo wanaagsan Allah na siiyo oo madaxweynihii hore Soomaaliyana maxkamad soo saarta aad baan u mahadsantihiin idin lahaantiin Cabdiqani walaal aad baa u mahadsan tahay ana hal mar idin ka codsanayaa kulligii i gashaan maadaama aad dhegeysanayna maanta doodiina dhan hal mar dadka wanaagsan wanaaji arsha mudgal qaad ali soo dhaweeye walaalkii soo dhawo okay waxa roon weysay walaalkii Hollywood oo salaam aan safar dheer aan u diraa markaan jaarba ka dhacday walaalkii naga raarno safar dheer u diray Hollywood adigana dhulka geeya isagana صاحب naga khalaan raggeed iska dhigna qaadan
حشمت سمي دتك ولا لاقى حشمي اسك قلمود qofka moogis banaanka yaalo dhulka iska geenina waran noqonaysa haduu meega furiyo هلو يا سكرو ديري دقنيو فلسطين أبا يسود عنب سود أبا والله كي روكا كبيرال نخو ودير بيجي شعبي يالنا في الأوكران روك اسكت هذه أنا ما سنتها أنا مفروض ولا صور السلام عليكم يا ريت توصيل الأسود أصحابتي شرفتونا ومقعي عبد الشاف واليوم كل شيء هذا اليوم فلو يا صاحبي فلو ولا لا تقول Yeah.